madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta fadhi wada jira oo ay yeesheen labada gole ee baarlamaanka ee guurtida iyo wakiilada waxa uu ku soo qaatay khudbad sanadeedkiisa dastuuriga ah ee sanadkiiba uu hal mar ka soo jeediyay madaxweynaha dalku kulankani ayaa maanta waxa uu kaga hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay xaaladaha kala duwan ee dhinaca siyaasadda iyo horumarka ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxyaabaha uu ka hadlay madaxweyne Axmed Siilaanyo ayaa waxa ka mid ahayd wadahadalladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Somaliland oo uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay sabab u ahayd burburkii ku yimid wadahadaladani markii ugu dambeysay ee lagu galayay dalka Turkiga wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya waxay socdeen muddo 3 sanadood aan ka badnayn ama qaarkoodna wada jir xukuumad ahaan baarlamaan xisbiyada qaranka iyo shacbigaba halkan ayaynu ku guddoonsanay arrimihii ugu muhiimsanaa ee kulamada lagu heshiiyay waxa ka mid ahaa in la is-ixtiraamo inaan la carqaladayn mashaariicda horumarineed iyo maalgashiga ka socda labada dal iyo in la abuuro guddi madax bannaan oo uu fadhigoodu yahay magaalada Hargeysa oo si wada jir ah u maamusha ugana hagta mashruuca hawada Somaliland iyo Soomaaliya ee ay waqtigan qaramada midoobay gacanta ku hayso wixii dhaqaale ee ka soo baxana loo qaybsado si siman oo xaq ah nasiib darro wadahadalladaasi ma hana qaadin mana noqon wax midho dhala waxaana sabab u ah kadib markii madaxda dawladda Soomaaliya ay ka baxeen mabaadi'dii lagu heshiiyay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo khudbadiisa sii wata ayaa waxyaabaha uu dhinacyada kale ka hadlay waxa ka mid ah dhinaca ammaanka iyo horumarka laga sameeyay xagga ciidanka iyo waliba xiriirka Soomaaliland ay la leedahay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland isagoo ka dhawaajiyay arrimo ay ka mid tahay inuu la soo xiriiray madaxweynaha dawlad goboleedkaasi Soomaaliyeed ee Puntland indhaweyto waxa ka imanayay maamul goboleedka Puntland dacaayada ka dhan ah qarannimada Somaliland haddaba inkastoo uu dhawaani la soo xiriiray madaxweynaha Puntland oo iga raali gelin siiyay waxaan soo dhaweynayaa raali gelintiisa Somaliland waxa ka go'an inay mar walba nabad kula noolaato wadamada dariska ah iyo in la iska kaashado adkaynta nabadgelyada madaxweyne Axmed Siilaanyo intii ay khudbadiisu socotay waxyaabaha kale ee uu ka hadlay ayaa waxa ka mid ahayd dib u dhaca ku yimid dhinaca doorashada siyaasadda Somaliland taasi oo ku aastaasnayd inay dhacdo bisha Juun ee sanadkan aynu ku jirno ee 2015 wuxuuna sheegay in Somaliland looga bartay in haddii ay muuqato in dib u dhac ku imanayo doorashada in arrintaasi si wada jir ah oo ka dhan ah dhinacyada qaranka iyo waliba xisbiyada mucaaradka looga gudbi karo isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri mudane gudoomiye iyo mudanayaal waxa aynu joognaa xilli ay noo qorshaysnaayeen doorashooyinka madaxtooyada iyo wakiilada hase yeeshee waxa ka soo baxay komishanka doorashooyinka qaranka hindise ay ka muuqato in doorashooyinku waqtigoodii ay dhaafayaan waxa aan halkan ka cadaynayaa horeyna aan idinku sheegay in aniga iyo xukuumadayda iyo xisbigaygaba aanu si dhab ah uga howlgalnay inay doorashadu waqtigeedii qabsoonto ee loogu talagalay walaalayaal howlaha agaga aadan doorashooyinka waxa lafdhabar u ah 3 arrimood oo ay ka mid tahay in diyaarinta sharciga diiwaangelinta madaniga ah iyo tocodbixiyayaasha insaamiga dawladda ee dhaqaalaha doorashooyinka diiwaangelinteeda kaga aadan 3 magacaabida komishanka doorashooyinka qaranka waxaanu idin cadaynaynaa inaanu dhammaanba qodobadaasi ku fulinay waqtigii munaasabka ahaa ee uu sharcigu tilmaamay madaxweynaha Somaliland intii uu ku jiray khudbadiisa waxyaabaha kale ee uu ka hadlay waxa ka mid ahayd dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda isagoo oo sheegay inuu raadinayeen aqoonsi dhinaca beesha caalamka wuxuuna sheegay inay xoogeysatay xiriirka ay Somaliland la leedahay wadamada dariska iyo beesha caalamka isagoo sheegay in aqoonsiyo laga helay golayaasha deegaanada magaalooyinka Cardiff iyo Sheffield ugana mahad celiyay arrimahaasi madaxweynaha oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri jamhuuriyadda Somaliland tan iyo intii aynu dhidibada u taagnay ee aynu qaran noqonay ilaa maanta waxaynu dadaal ugu jirnaa sidii aynu aqoonsi buuxa uga heli lahayn beesha caalamka dadaalkaasi marxalado badan ayuu soo maray waxaana rumaysanahay inaynu maanta joogno meel uu caalamku intiisa badani garwaaqsaday gooni isku taagga Somaliland iyo geedu socodka horumarka aynu gaadhnay waxa xoogeystay xiriirka aynu la leenahay dawladaha dariska ah wadamada Carabta Yurub America waxa ugu dambeeyay in dhawaan golaha deegaanka ee Cardiff ay u gudbiyeen ra'iisul wasaaraha dawladda baarlamaanka dalka Ingiriiska
inay mooshin kaga dalbanayaan in aqoonsi la siiyo Somaliland. sida laga warqabo maalmihii ugu dambeeyay dhinaca duulimaadyada cirka ee diyaaradaha Soomaaliland waxa saameyn adag ku lahaa dagaalka ka soconaya dalka Yemen halkaasi oo gaabisay dhaqdhaqaaqii dhinaca duulimaadka diyaaradaha sidaas darteedna khudbadda maanta madaxweyne Siilaanyo uu ka soo horjeediyay fadhiga wadajirka ah ee ay lahaayeen golayaasha baarlamaanka ayaa waxa uu ku soo qaatay waxa kamid ah taageerada iyo waliba mowqifka Soomaaliland ee ku aadan dhinaca beesha caalamka lagana siinayo gaar ahaan dhinacyada baabul mandariya badacas la doonayana in lagu taageero shirarka ay qabanayaan wadamada jaamacadda carabta madaxweyne Siilaanyo oo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yiri mudane gudoomiye iyo mudanayaal muddooyinkii dambe xasilooni darro ayaa ka jirtay qaar kamid ah wadamada Carbeed waxaana ugu dambeeyay dagaalada ka socda dalka Yemen ee aynu dariska nahay dagaaladaasi waxay saameyn xoog leh ku yeelanayaan guud ahaan badacas iyo wadamada ku xeeran ee aynu kamid ahayn dawladda Somaliland waxa dalalka ay dariska iyo beesha caalamkaba intaba ay kala shaqaynaysaa adkeynta iyo xoojinta xasiloonida mandaqada gaar ahaan marinbiyoodka badacas oo halbowlo u ah isku socodka dhaqaalaha adduunka dawladda Somaliland waxay si buuxda u garab taagan tahay mowqifka jaamacadda carabta iyo taageerida dawladda sharciga ah ee dalka Yemen waxaana ka soo horjeednaa kooxaha qalalaasaha ka wada dalkaasi Yemen وإبراهيم عبد الله إبراهيم صحوفي يا أحمد ديريع الترويد له رأي TV مقالة بورما.